maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo waraysi gaar ah ku siinayay telefishinka Ariel Hotel Nasteexo ee magaalada Burco ayaa ka jawaabay hadallo dhaliil ah oo maalinimadii shalay warbaahinta u mariyay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin isagoo ka jawaabaya hadalladaasi maayar Cidin ayaa waxa kamid ah hadalladiisii Berberiya Burco ma laba meelood la isberber eriyaaba 1 kiiloomitir oo isku yaro 4500 qof soo hoyto tuulooyinka Burco aan xukumo mid kamid ah baad la datahay oo la dal tahay maxaad ku faanaysaa 1 kiiloomitir iyo barbaad mas'uul ka tahay oo qaranka hantidii ka dhaxaysana in gaar lagugu qariyo 10% inta gaar lagugu qariyay oran maayo qabyaalad baa marxuumkii kuugu qariyay aqoon halka lagu galiyay yaad maanta leedahay waxay 1 kiiloomitir 0.5 square Berberi way oo waliba aan ciidba ku jirin cidla 4500 markay ugu badan tahay habeenkii u soo hoyto maxaa sameyn lahayd 500 oo kun oo qof aad u taliso magaalada u soo hoyto laakiin ma ruuxu sheegay inuu dad ku soo kicisay bulshadii aad ku kicinayso gobolka Togdheer isaga arinta ka war waa 12.5% oo umadu wada leedahay oo la qaybiyo iyo 10% oo dekadaaya kastamadii hama ka soo xarooda oo umadu wada leedahay oo la kala badsado la kala bursaday oo aan leenahay wartaana ha lagu soo daratan oo 12.5% iyo 10% 22.5% umada reer Soomaaliya loo qaybiyo idaacadahan kaga hadalay madaxweynahan u sheegnay golayaasha qarankan u sheegnay waa qodob sharci ah wixii laga yeelana waan ku go'naa arrinkaasina maanta wuxuu hor yaala golaha wakiilada ayuu hor yaala wixii halka ka soo baxana waan ku go'naa maayarka magaalada Burco Maxamed Muraad ayaa ku tilmaamay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin inuu sidoo kale yahay nin ku abaalka daray barasaabkiisii hore ee gobolka Saaxil Master Ramaax isagoo maayarka degmada Berbera maalinimadii shalay isagana dhaliil u soo jeediyay waxaana kamid ah hadalladii maayar Muraad sida tan isku qiimo ma nihin aniga Burco dhan bay doortay 20 xildhibaanba halka daahir yaa shamis ayaa gacmaha lay taag anagu isku qiimo ma nihin kii sidaa u galay shaqadiisa ku waayna telefishinadu ka caayay 24 saacadood waa bila abaal xoolahan qaranku leeyahay ee sida khaldan u maamulay ayaa hadallada noocan ka keenay dhaliishan uu maayarka magaalada Burco u soo jeediyay Cabdishakuur Cidin ayaa imanaysa kadib markii uu maalinimadii shalay warbaahinta madaxa bannaan ka soo dhaliilay maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida